Halkan waxaa ku nool dilayaal, ganacsatada daroogada, xubno burcad ah, iyo dad aan weli maxkamaddu xukun ku ridin. Dhammaantood waxay ku wada jiraan hal xabsi, waxayna wada xirtaan isla dharka maxaabiista. Maxaa halkan ka socdo? Kadib markii aan aragnay saboolnimada daran ee waddooyinka Filibiin iyo dembiyada noocyadooda kala duwan, maanta waxaan arki doonnaa halka uu ku dambeeyo qofka qaada waddadaas. Laga bilaabo halkan ayay sheekada dhabta ahi ka bilaabanaysaa. Maanta waxaan geli doonnaa laba ka mid ah xabsiyada ugu xun uguna magaca xun Filibiin. Marka hore waxaan booqan doonnaa xabsi ku yaala koonfurta fog ee Filibiin, magaalada Cotabato. Kadibna waxaan u safri doonnaa Cebu, halkaas oo ku yaala xabsiga ugu weyn ee dalka. Daawo muuqaalka ilaa dhammaadka, sababtoo ah ugu dambeyn waxaan la kulmi doonnaa waayo aragnimada maxbuus ku jira qolkiisa xabsiga. Halkan waxaa ka bilaabanaya xabsiga ugu horeeya ee ku yaala magaalada Cotabato. Xabsigan wuxuu hore uga mid ahaa kuwa ugu halista badan uguna ciriiriga badan dalka. 4 sano ka hor ayaa la bilaabay dadaallo lagu doonayo in wax laga beddelo xaaladdiisa. Maanta waxa uu u yimid inaan indhahayga ku arko xaqiiqda. Maamulaha xabsiga ayaa isagu go'aansaday inuu nagu wareejiyo xabsiga. Waxay rabaan inay muujiyaan sawir gaar ah. Fiilooyin qodxo leh ayaa halkan yaal, kuwo kale ayaa dhinacaas yaal, kuwo kalena meel fog ayaa ka muuqdaan. Waxay ila tahay in baxsashadu aysan u adkayn. Xorriyaddu waxay u jirtaa 2 tallaabo oo keliya. Hadda waxaan geli doonnaa qolalka maxaabiista. Askarigu wuxuu maraa halkan si uu u tiriyo maxaabiista. Waxaa ku jira 20 maxbuus qol walba. Wuxuu hubiyaa in qofna uusan maqnayn ama uusan baxsan. Intaas kadib waxay bilaabayaan jimicsiga subaxdii. Waraysi ayaan ka qaadaynaa maxbuuskan. Waa maxay dembigaaga? Dil daroogo ah iyo kufsi ayaa dadka qaarkood halkan u joogaan. Adiga dembigaagu muxuu ahaa? Dil. Yaa dishay? Nin. Markii aad xabsiga soo gashay, imise jir ayaad ahayd? Waxaan jiray 20 sano. Aad baad u yareed. Haa. Ma si kama ah ayay u dhacday mise si ula kac ah ayaa u dishay? Wakhtigaas waxaan ku jiray dhibaatooyin badan. Aad baan u xanaaqsanaa, mana aanan ogeyn waxa dhici doona. 1 daqiiqo ama dhowr ilbiriqsi oo caro ah darteed ayaa qof u dishay? Haa. Imise sano ayaa lagu xukumay? 30 sano oo xarig ah dilkaas awgiis. Marka dhammaan dhallinyaronimadaada waxaad ku qaadanaysaa xabsiga? Haa, dabcan. Dhammaan maxaabiista waxaa loo xiray dhar huruud ah ama jaallo ah. Filibiin waxay ka mid tahay waddamada leh xabsiyada ugu ciriiriga badan adduunka. Qaar ka mid ah xabsiyadu waxay gaaraan in ay maxbuusaan in ka badan 400 boqolkiiba awooddoodii loogu talagalay. Markii aan galnay xabsiga, waxaan aragnay qolal badan oo maxaabiis ka buuxaan. Xitaa gudaha waxaa ka furnaa dukaan yar oo ay maxaabiistu wax ka iibsadaan. Waa maxay dembigaaga? Waxaa liigu eedeeyey, laakiin run ma aha. Waxaan ahay qof aan waxba galabsan. Waxaa la kulmay nin 68 jir ah oo lagu eedeeyey inuu kufsaday gabar 6 jir ah, balse maxkamaddu weli kama aysan gaarin xukun. Waxaa jira maxaabiis badan oo sannado badan xirnaa, iyagoo weli sugaya go'aanka maxkamadda iyo caddaymaha. Maxbuuska ugu da'da weyn wuxuu jiray 80 sano, isagoo sheegay in lagu eedeeyey kufsi balse aan dembigiisna la caddayn. Si sharcigu uga digayo, qofku waa dembilaawe ilaa dembigiisa la caddeeyo. Kadib waxaan galnay qaybta haweenka. Mid ka mid ah haweenka ayaa sheegtay in lagu soo oogay kiis la xiriira daroogo, balse ay ahayd qof isticmaala oo keliya, aysan ahayn ganacsato. Waxay muddo kooban 2 sano ku jirtay xabsiga, iyadoo weli sugaysa maxkamadda. Haweeney kale waxay sheegtay
in lagu xukumay 12 ilaa 15 sano sababtoo ah waxay lug ku lahayd keenista gabdho kale si loogu adeegsado ka ganacsiga dadka. Haweeney kale ayaa tiri, waxaan leeyahay madax xanuun sababtoo ah waxaan u xiisay qoyskayga. Markii la weydiiyey waxa ay u xiistay fanaanka, waxay ku jawaabtay wiilkayga, gabadhayda iyo hooyaday. Qaar badan waxay sheegeen inay rumaysan yihiin inay yihiin dad aan waxba galabsan. Quraacdooda maalinlaha ahi waxay ahayd bariis iyo qaxwo oo keliya. Waxa ugu adag xabsigu ma aha cuntada ama sariirta, balse waa inaadan xor u ahayn inaad baxdo markaad rabto. Waxay u muuqdaan dad xor ah laakiin dhab ahaantii waxay ku nool yihiin xorriyad la'aan. Sannadkii 2016 markii ay Filibiin bilowday ololihii dagaalka ka dhanka ahaa daroogada, waxaa dhacay mid ka mid ah mowjadihii xariga ugu weynaa taariikhda casriga ah ee dalka. Dhammaadkii 2017, tirada dadka la xiray waxay dhaaftay 75,000, taasoo sababtay ciriiri aad u weyn oo xabsiyada ah iyo culays xooggan oo ku dhacay nidaamka garsoorka. Intaas kadib waxaan u safarnay magaalada Cebu, halkaas uu ku yaalo xabsiga ugu weyn Filibiin. Halkaas waxaan kula kulannay maxaabiis badan oo qaarkood muddo 8 ilaa 12 sano ah sugayay xukunka maxkamadda. Qaar waxay ku doodayeen in garsoorku uusan cadaalad ahayn, halka qaar kalena lagu helay dembiyo culus sida ka ganacsiga dadka. Haweeney la kulannay ayaa sheegtay in la xiray iyadoo 17 jir ah, haddana waxay ku dhowdahay 29 jir, iyadoo weli xabsiga ku jirta. Waxay qiratay inay gashay dembiga sababo la xiriira saboolnimada iyo baahi dhaqaale. Waxaa sidoo kale jiray nin Australian ah oo sheegay inuu 12 sano ku jiray xabsiga, isagoo weli sugaya go'aanka kama dambaysta ah ee maxkamadda. Wuxuu yidhi, cadaaladda dib u dhacda waa cadaalad la diiday. Wuxuu sheegay in markii la xiray uu jiray 50 sano, haddana uu yahay 63 jir. Dowladda Australia waxay booqataa 6 bilood mar, balse wuxuu sheegay in qof kasta oo lagu eedeeyo dembi waddan kale uu qasab u yahay inuu maro nidaamka garsoorka dalkaas. Ugu dambeyn, waxaan aragnay qol ay ku jiraan 13 maxbuus. Sariiraha ay isdul saarnaayeen. Mid ka mid ah maxaabiista ayaa xitaa gudaha qolkiisa ugu dhistay meel yar oo kula kulmo xaaskiisa marka loo oggolaado booqashada. Xabsigan waxaa sidoo kale loo yaqaanaa xabsiga maxaabiista qoobka ciyaarka. Maalin kasta waxay sameeyaan qoobka ciyaar. Qaar badan oo ka mid ahna waxay noqdeen qoobka ciyaaryaal caan ah. Darbiyadaas gadaashooda waxaa ku jira kumanaan rag ah oo lagu xukumay dembiyo culus, balse maanta waxay soo bandhigayaan bandhig qoobka ciyaar ah oo cajiib ah. Habeenkii soo bandhiguhu waxaa lagu qaadayaa maxaabiista isagoo la cunay baasto degdeg ah Indomie si uu u dareemo noloshaada maalinlaha ah. Markii mugdigu dhacay, urka gudaha qolka iyo ciriiri ayaa si dhab ah loo dareemayay. Dhammaan kuwani waa sheekooyin dhab ah oo ku saabsan dad dhab ah. Go'aano yaryar ah ayaa beddelay noloshooda weligood. Marka qaar qofku ma oga qiimaha xorriyadda ilaa uu waayo. Hal ilbiriqsi oo keliya ayaa beddeli kara wax kasta. Qiimaha xorriyadda waa nimco weyn, alxamdulillaah.